ra'iisul wasaare mas'uuliyadii baa ku saaran mas'uuliyadii doorashada iyo tii amnigaba adigay ku saaran tahay ilaahay ku guuleeyo annagana garabkaagan istaagsanna waxaan rajaynaynaa inaad talaabooyinka bilowga ee aad qaaday kuwii ku xigay ee loo riyaaqi lahaa inaad qaado waxaan sidoo kale ugu baaqaynaa madasha wada tashiga qaran ee naloo sheegay inay ka kulmayaan saxidda hanaanka doorashada iyo khaladaad ka dhacay inaad ku dhiirataan saxidda khaladaad ka dhacay inaad ku dhiirataan badbaadinta dalka oo aad ka soo guurtaan danaha shakhsiga iyo awoodaha yaryar ee aad ismudeen ee shakhsiga hoose waxaan idin rajaynayaa inaad dalka go'aanada aad qaadan doontaan inaad uga badbaadisaan dalka inuu gadaal u noqdo fowdo galo doorashadii laga rajo dhigo dad waaweyn oo mas'uuliyiin ayaa tihiin oo loo idmaday maamuladii dalkii Soomaaliya 90% adinka maanta maamula oo dawladii federaalka ugu hooseeya kulankiina rajo weyn ayaan ku xireynaa waxaan ku xireynaa waxaan ku iraahdaa inaad rajo weyn aan ka qabno inaad wax sixi doontaan oo hanaankii doorashada ee aad fududaysateen ee bulshada Soomaaliyeed diiday oo aad dejiseen aad sixi doontaan wixii hanaanka ka dhashay ee khalad ah ee lagu boobay kuraasta uu ka mid yahay 67 aad sixi doontaan taa ayaan idinka rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha oo hogaaminaya madashaasna waxaan ka rajaynaynaa dhiiranaan gaar ah iyo hogaamin iyo inuu waaba dareensan yahay waxaan ku iraahdaa uu qaato mas'uuliyadiisa uu ku badbaadinayo dalka iyo doorashadiisa inta kadib waxaan rabaa inaan si gaar ah u la hadlo madaxweyne qoorqoor waxaa tahay nin dhalinyaro oo mas'uuliyad u helay fursad inuu galmudug xukumo galmudug waxay ka kooban tahay beelo kala duwan beelaha aad xukunto iyo dad Soomaaliyeed aad xukunto ayaa waxay dareemayaan inaad yaraysatay inaad go'aan ku gaartay inaad kuraastoodii xoogto adigoon fiirinayn miisaanka ay leeyihiin Soomaali ay ku dhex leeyihiin xuquuqda muwaadin ay leeyihiin sharaftee iyo karaamada ay ka mudan yihiin madaxweyne waxaad haysataa jaanis aad isku saxdo waxa aad la dagaalamaysa shakhsi ma ahan dad dhan ayaad la dagaalamaysaa oo aad xukunto dad dhan ayaad waxaad dareensiisay inaysan muhiim u ahayn maamulkaaga dad dhan iyo bulsho dhan ayaad waxaad dareensiisay inaysan jirin oo kale madaxweyne waxaan rajaynayaa haddaad qof amba shakhsi la dagaalsan tahay asigaas ha kugu ekaado dagaalku laakiin dad dhan iyo bulsho dhan aayahooda inaad iyo masiirkooda inaad talaabo yaraysato oo aad go'aano degdega aad qaadato oo dhaxal weyn reebi kara oo bulshadaas iyo bulshooyinka la dega ku reebi kara oo wadajirkii galmudug ku reebi kara oo aayahaaga siyaasadeed dambe ku reebi kara oo sumcadaada ku reebi kara madaxweyne waa kaaga digaya arrintaas maanta waan kugu walaal hadlayaa siyaasi la hadlayo noqon maayo adiga baa kula walaal hadlayaa mar waan kugu abti waramayaa sumcadaadu halis bay ku jirtaa deegaanada aad xukunto oo galmudug dadkoodii kalsooni darro weyn ayaa gashay mas'uuliyadda aad haysa in aad u qalanto inaadan u qalmin shaki ah ayaa galay kalsoonidaas soo celi fursad baad haysataa qof shakhsiya oo aad wax u boobto waxa uu ku tarayo iyo dad dhan ee gobolada degan galmudug muhiim u ah carada ay arrinka ka qaadayaan iyo xumaanta ay ka qaadayaan iyo dhiilada ay ka qaadayaan isku fiiri qofka wuxuu ku tirayo iyo waxa dadka dhan ay ku tirayaan iyo waxa ay u dhibi karaan xanaagooda iyo xumayntooda waxay isku fiiri madaxweyne dadka madaxweynuhu ka soo jeedo oo deegaan ahaan uu ka soo jeedo reer ahaana ka soo jeedo ceebta madaxweynuhu keenaya waa idin kala gaartaa gacanta qabta abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell macmil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay application-ka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg
ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda haddaba sidee ayuu u shaqaynayaa applicationka dahab plus Google App Store-ka ama Play Store-ka moobilkaaga kadibna raadi dahab plus marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelinta ugu horreyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga idahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawlaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shil in ka badan $126 oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Daha Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka Daha Plus waxaad adeega Dahabbay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee idahab iyo bangigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Daha Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetka kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Daha Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud mar kasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Daha Plus تعالسا واكو سلام سلام مرة بيا أول لعقتي بيلكي مانت لعقتها قيمة بدنا تاني أنت السنة كنت براي ما أنت هداد العقهين أرجع يدافع معقول ما الحمد لله لا ما تسكله يسر الله إذا سوعس عن شيء هلا حاجي وحوي لبنا كنت توسي شافتان وكيربان marka xogo iyo dulqaad بار حلن ku hayaa ma kul ma حاجي أخبار فرحان لهم كوا هيا ترى عنا أخبار فرحان لهم كوا هيا يشك هذا إذا ما هو حرطورها أنت أخبار فرحان لك وش أو كقوليس سامتينها waxaan ku guuleystay ina ooyay iga soo dhumar dambe ima burinaysto bajaajaan ku guuleystay anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhagaan ku dhaga bajaaj lacagtan kale saadiga haya farxadda ii sheeg annagu waxaan ku guuleystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guuleyso macmiil ku shubo kaarka hadalka ama internet Somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyado ay ka mid yihiin gawaariha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kala badan